muddooyinkan dambe waxaa socday tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeyay shaqaale weynaha shirkadaha Telesom Group. tartankan oo dhex marayay kooxaha kala ah Dar es Salaam Bank, Dhaweeye, Telesom, shirkadda leydhka ee Telesom Tech, Saad, Taj, Kabsan iyo Somgas. guntii iyo gabagabadii waxaa isugu yimi final labada kooxood ee kala ah Kabsan iyo shirkadda leydhka Telesom ee Tech. labada kooxood oo soo bandhigay ciyaar farsamadeedu aad u sareyso, balse waxa ay guusha ku raacday kooxda ku ciyaareysay shirkadda leydhka ee Tech, waxaana ku qaaday 4 gool iyo 2 gool. imikana waxaa inooga warrami doonaa taariikhda koobka oo kooban Yusuf Cabdiraxmaan Yusuf. bismillaahi raxmaani raxiim. haddaan in yar ka warramo taariikhda Telesom Shabelle Cup, koobkan wuxuu bilaabmay 2017 maanta waxaan joognaa 2020. 4 sano oo xidhiidh ayaa koobkan la qabtay, waxaana ka soo qayb galay shirkadaha Telesom Group. tartankani waa sanadle, waana markii afraad oo xidhiidh hore waxaa ugu soo guuleystay tartankan 2017 waxaa ku guuleystay kooxda Saad, 2018 iyo 19 waxaa ku guuleystay kooxda Dar es Salaam Bank oo 2 jeer oo xidhiidh koobka ku guuleystay. iyo caawa inuu joogno caleemasaarka kooxda Tech oo ku guuleysatay Telesom Shabelle Cup 2020. waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo koobkan waxa uu tartamayay 8 kooxood, dhammaan waa shaqaale weynaha shirkadda Telesom, cid dibadda uga timidna kuma jirto. waxaan halkan si gaar ah uga mahadnaqayaa dhammaan shirkadaha Telesom Group gudoomiyaashooda oo si fiican noo soo dhameeyay. waxaana si gaar ah uga mahadnaqayaa gudoomiye Ciise Maxamuud Faarax oo markasta garab taagan in koobkani qabsoomo, oo hiiliyahooba la garab jooga xafiiska xidhiidhka dadweynaha ee Telesom. waxaa kaloo u mahadnaqayaa Cabdiwahaab Xaaji Cali oo ah maamulka shirkadda Kabsan oo abaalmarino guddoonsiiyay labada kooxoodba. koobkan waxaa sanad kasta hirgelintiisa iskale xafiiska xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Telesom oo ay matalayaan anigoo ah Yusuf Cabdiraxmaan iyo Saleebaan Xasan Cabdi. caawa aad iyo aad bay farxad weyn ii tahay ka soo qaybgalka koobkan aan ka soo qayb galay, oo runtii xiise gaara caawa noo lahaa oo ay halkan ku ciyaarayeen shirkadda Kabsan tiimkeeda iyo Tag, halkaasoo ay muujiyeen ciyaar wanaag, akhlaaqad, kala dambeyn iyo is-ixtiraam aad u weyn. kubaddu waa bermadow iyo mid cad, laba kama wada qosliso, had iyo jeer kooxun baa qaada, laakiin xigmadda ku jirta waxa weeyaan sida ay kooxuhu u wada ciyaareen ee aan fashilka lahayn, ee ay iskugu dul qaadanayeen, ee quruxda badan leh. waxaan iyagana u mahadnaqayaa taageerayaasha labada dhinac iyo stadiumka halkan kaga soo qayb galay, oon iyagana leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. kubaddu waxyaabo badan bay ka qayb qaadataa, isdhexgalka dadka, caafimaadka, horumarka, is-aragga, waxyaabahaasoo dhan way dhiirigelisaa. caawna farxad weyn ayay noo tahay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka hore ilaahay baa mahad iskale iskugu keenay goobtan quruxda badan, suurageliyeyna in aynu soo gaadhno final guud ahaan Telesom Group ciyaar ay wada ciyaaraysay. marka waxaan u hambalyeynayaa dhammaan labada shirkadood ee ka soo qayb galay finalka iskugu yimid. saa la sheegayna kolley guushu labada qolo bay raacilayd. marka waxaan aad u hambalyeynayaa qaybta qolada Kabsan oo iyaduna dadaal iyo muujisay karti fara badan, laakiin nasiibku uu siiyay qolada Tech. sidoo kale waxaan halkan uga ducaynaynaa Shabelle oo ah ninka loogu magac daray Shabelle Cup ama koobka loogu magac daray oo xaalad caafimaad ku maqan. markaasna ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu caafimaad siiyo. aad iyo aadna waxaan uga hambalyeynaa kolley groupka ama xidhiidhka kubadda ee Telesom Group sida fiican ay kolley usoo agaasimeen iyo hawsha u dhacday. aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa guud ahaan qolada qaaday iyo qolada ka soo qayb gashay lafteeda ama kaalinta labaad ku guuleysatay iyo guud ahaan taageerayaasha labada dhinacba. aad iyo aad baan uga hambalyeynaa mar labaad iyo mar saddexaad Kabsan Group oo ah qoladii lagaga guuleystay, oo aan leenahay waa timeku waa marka insha Allah taala khayr ayaan rajeynaa. qolada Techna waxaan leenahay guushu caawa idinkayn raacday. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. caawa waxaynu halkan iskugu nimid gunaanadkii koobkeenii aynu muddada badan soo wadnay, heesaa Yuusuf sheegay muddo 4 sano xiriir soo socday. bilowgiisa inuu lahaa walaalkeen Shabelle oo xaalad caafimaad imika dalka uga maqan oo u baahan loo duceeyo. kulleyba waxaa la yidhi gari laba nin kama qosliso, laakiinse maanta waxaynu taaganahay guushii oo aynu guddoonsiinayno Tag
ujeedadana waxay ahayd koobkan loo qabanayay inaynu isdhexgalka iyo in joogii shaqo la bedelo kulamo kaloo caynkana la isku yimaado wax badan oo aynu halkan maanta ay lagala tegayaana way jiraan amba isbarasho ha noqoto amba wada shaqayn iyo isku imaansho ha noqoto amba farxaddan caawan koobka halkan aynu ku kala gudoono ha noqoto marka waxaan hadalka kusoo koobayaa uun inaynu hambalyada aynu kooxda labada kooxood ee finalka halkan isku yimid oo qolana ay koobkii maanta koowaad qaadso qoladana ay yihiin kooxda kaalinta labaad gashay oo kala tag oo aynu siinayno koobka guusha iyo kaalinta labaad aynu siinayno kaabsan oo leedana hambalyo kooxihii kale ee wareegan ka soo qayb qaatay inuu dhammaantoodna iyagana ku hambalyeynayno ciyaar wanaagga ay muujiyeen iyo sidii kulankanba uga soo qayb qaateen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo